Soo qaybsashada imtixaanada waxaa arkayna tirishada inay artiska diyaarisay baraha bulshada baarkan qodobeen soo bixisay asxaabteeda u sheegay laakiin asxaabteeda waxaa arkayna aan iyadoo dheer viral ayuu noqday anshin sawirada ay sameysay laakiin mid kamid ah waxay dhahaysaa waxaa laga yaabaa gabadha inay dadka dambeeyaan maxaa yeelay si fudud ayay shaqada ku heshay tirishada anshin waxay su'aashaa shirkadda Lingio waxaan arkayna ilaaliyaashu waxaan dhahay aqoonsiga waxaan imaanaa TikTok wuxuu dhahay xas Lingio mustaqbalka waa in waxay kana celikana way isdagaalayaan dhanka waxaa arkayna tirishada xafiiska imaan waxaan ku dhahaysaa wax walba adiga sameyso ma soo ogaatay ayuu ku dhahay waxaan dhahaysaa anoo awal si adag u shaqayn jiray waxba iima toodi jirin laakiin hadda wax yar anoo sameynaya ayaa guulahan gaaray adiga ayaa ka dambeeyay maxaa ii dhigtay sidii camalkii kale wuxuu ku dhahay adiga ayaa shaqaysay ani wax yar oo caawinaad ayaa kuu sameeyay dhahaysaa waa inay kala fogaanaa waxay sameynayuu dhahay in waxay dhahaysaa waa inay kala fogaanaa wayn kasoo tagaysaa anshin walaalkeeda u imaanaya wuxuu ku dhahay maxay uu sheegay sidee waxaas jira in waxay dhahaysaa waa fiican waa inay wax ugu kula joogaa dhan kale Atoore Lingio meel dheer ayuu ka daawanayay woon iska soo tagay anshin walaalkeedna wuxuu dhahay halka maxaa ku keenay Atoore Lingio wuxuu ku dhahay waa saaxiibtay ugu isna wuxuu dhahay ugu hada saaxiibnimo halkan ugu maad way ka xanaaqsatay maxaa ka galay ku dhahay wuxuu dhahay anshin waa walaashay wixii kale waa kala aqaana hadda u baahan waa ka fogeyn karaa ugu dhinaca kale Atoore Lingio wuxuu su'aal meelaha loo ciyaar waxa arkay aan gidishan oo dhibaasna wuxuu dhahay maanta iskuulka maxaa ka galay dhahay TikTok ka imaana wuxuu dhahay ku soo meeshan ka isna wuxuu dhahay adiga lafta ay askariid waxa muruq waa ay bitacma TikTok wuxuu Lingio ku dhahay ogtay aba maanta maalin weyn ay u tahay aad ayuu kugu baayay ogi anshin ma madax adagtay laakiin adiga ayaa ka madax adag waan aaminsan wax walba xalinaysa ayuu ku dhahay dhinaca kale tirishada anshin waxaa loo soo diray dareeska Yugo iyo xaafadda ay degantay waxaa arkay in walaalkeed soo qareys waxa aaday Yugo gurigeeda walaalkeed uu caawin ka qaboweynaysa dhanka waxa arkay Atoore Lingio shirkad horteeda ayuu anshin ku sugay asxaabteeda wuxuu ku dhahay miyuu geen kartay fiyaara in waxay dhahay way baxday meeshii aadam idin sheegtay ayuu dhahay in waxay dhahay saaxiib hore ee aad waliba degan xaafadda Bishu sekretariin waxay dhahaysaa Bishu waxaa degan Yugo tirishada Yugo xaafadda ay maad waxaan dhahaysaa Yugo ma joogtaa waxaa arkay gudaha inuu qof ku jiro uu bud haysto iyadoo baa furta Atoore ma wuxuu dhahay meesha saam ku galka hub la'aan galka waa inaa hub qaadana hub ay qaadana meen raa maxaa arkay soo qofni joogay waxaan dhahaysaa boorsada inta ay taala inta ay ku soo roob ayaa soo cimiladan aad ay u xumaan rabaa waa in iskaga tagna ayuu dhahay roobka ay wada inta gaariga raacay ay dhahaysaa laakiin roob ay ku da'ay qoob ayaa galaayo ku beerta ayuu ku dadaya dhanka waxa arkay habeenkii wuxuu dhahay gaaska gaariga uu ku dhamaan rabaa goob shidaal meeshan kama dhaw anteenana ma lahayn istaalin bombalada dhanka waxa arkay anshin walaalkeed inay ku soo wajahay anshin waxay imaanayaan hotel meesha ka dhawa wuxuu dhahay maalintii lamaan yar qurux badan ayaa tii tii xiriis lamaan min iyo laba qolno jir aqal oo kaliya ayaa banaan ayuu dhahay inuu iskaga tagay ay dhahaysaa wuxuu dhahay meeshan hotelkan oo kaliya ayaa ku yaal anshin waxay dhahaysaa isla degeena arkeed ay u qalajinaa timahan u qalajinaa dhinaca kale Atoore Lingio wuxuu arkaya barambaro korkiisa ku socota wuuna ka soo cararaya anshin waxay dhahaysaa barambarada adiga ka orod badan ee dhan way dilaysaa waxaan dhahaysaa soo meesha ulaasna Atoore Lingio wuxuu dhahay adiga hoos seexan nimiro koraya seexanaya iyadoo way wareegaysaa waxaan dhahaysaa ma yahay xuduuda noo sameeyay xuduud ma soo gudbi kartid Lingio wuxuu ku dhahay maadaama adiga hore u tir dadka wax wadaagan way saxfiyeen iyo cafidiyeen ma yahay dhahaysaa wuxuu dhahay kaliya waxa uu sameeyay in rajadi ku geliyo adiga waa dadaashay dadaalka oo kaliya ayaa dadaal ku daray waxa u baahnaa faxa inay sarab ku soo fiirin intii aad samaysay aad baa ugu xanaaqay dhahaysaa danaadan ii sheegin laakiin rajo oo kaliya inay gelisay ayaa u baahnay dhanka waxa arkayna anshin walaalkeed inuu imaaday Yugo gurigeeda wuxuu raadinayay anshin waxa arkayna Yugo inay daaqada dhankeed ay taagantay meesha ay iskaga qarinaysay waxa arkayna in qof uu soo diray lacagta oo ku soo wareejiyay waa in goobta bedelataa suuxi ayaa la gaaray Atoore Lingio markuu soo galay meesha waxa arkay anshin walaalkeed wuxuu dhahay walaasheeda aawe waa inay ka fogaataa dhanka Lingio wuxuu dhahay jaceelkeed ayaa ahay Lingio wuxuu ku dhahay anshin walaalkeed waa inay ku ekaataa xadka walaaltinimadaada anshin ayaa meesha imaanaysa walaalkeed wuxuu ku dhahay ma fiican tahay waqti badan ayaa ku raadinaya anshin wuxuu dhahaysaa maxaa ku daaray xalay inta ayaa joogay ay ku dhahaysaa kan wuxuu ku sameyn soo maamay ay dhahaysaa soo bax gurigeena aadayna anshin walaalkeed Lingio laba gacan ay kala qabsanayaan iska fujinaysaa labadooda soo raacayaan anshin walaalkeed Lingio bawrkiisa ayuu soo raacay isna wuxuu dhahay walaashan way idinaysaa bawrkeena soo raacaysa miya anshin walaalkeed wuxuu dhahay bawrka iga leesan saas ayaa u soo raacay gaarigaaga gurigood ay imaanay walaas ayuu degsanaa Atoore wuxuu dhahay saama ii tagaysa Atoore Lingio tirishada anshin wuxuu ku dhahay aniga ayaa ku leh tirishada anshin wuxuu ku dhahay goorma ilaadisna wuxuu dhahay xalay waa ogtay sama intii fahantay tirishada anshin walaalkeed meesha ayuu ka kaxaysanaya guriga ay aaday wuxuu ku dhahay xalay maxaa sidaas oo dhan u sameysay in waxay dhahaysaa iga raacno wixii qasab miyay ahaayeen ayuu ku dhahay ma ayay ku dhahaysaa waxaan dhahaysaa walaal labadiina is qabsatay mar walba aniga ayaa dhaxda ku dhumay ee sidan iska daaya wuxuu ku dhahay hadii aad aniga walaal ahaan lahayn miyo ogaan lahayd xiriirin waxay dhahaysaa maya walaal halaas oo kaliya ayaa u baahnaa ku dhahay iska seexo aniga waa daalanay waa seexanaya hadan waa kaasii tagayuu ku dhahay wuxuu su'aalaha dhanka ay baarka gabar kale ayaa soo agfarisay si ay isku lacabeeyaan laakiin anshin ayuu ku qaldaya weyna ka tagaysaa gabadha kaligiis ayuu meesha ku noqonayaa anshin walaalkeed waxaana soo wacaya qof wuxuuna ku dhahayaa waa inaa imaata asna hay hadda ayaa imaanaya ayuu ku dhahay waxaaba arkaya tirishada saaxiibteed inay tahay
wuxuuna ku dhahay halkaan oo keliya inaa lacagta kaa bixi bisma igu wacdiin waxay dhahaysaa dawiil qurux badan tahay saas dhan isku bagaya hadda ay soo wici lahayd oo kusoo diri lahaa ayuu ku dhahay wax kale waa u baahan tahay miyaa jir maya ayay dhahaysaa waxaan ku dhahaysaa markii aan kusoo wacay hore ayay imaatay waa ii xiistay mid kale tikid ayaa soo jaray ma israacnaa isna saaxiibtaada anshin wada ayuu ku dhahayaa iyo waxay dhahaysaa lacag ii bax waa arkeen inuu kasoo ogolaaday waxaan halkaas ka ogaanayna waxaas oo dhan inay qorshe ay ka wadatay waxaan dhahaysaa wuu ii hagaagay dhankan waxaa arkayna tiriishadeen saaxiibteed inay soo wicayso waxaan ku dhahaysaa walaalka filimka uu jeclay ii sheeg waxaan ku dhahaysaa si isaga iskaga dhaadhiciso filimkan aad baa u jeclahay anshin walaalkan jojo ayuu wuxuu weydiinaya wuxuu dhaha mar walba maxaa loo baahan wiilkii ma tallaabada horeysa uu qaado idin xidhaysa tambaaqo dhankan waxaa arkayna anshin walaalkay inuu wax soo galay waagii yaraan asigii anshin uuna gitaarka u tumi jiray markii ay iyadan wax sawiri jirtay waxaana halkaas ka fahmayna asigii anshin inay walaalo dhab ahayn ee isla soo kareen oo keliya jecel qarsoodi oo yaraantuna uu qabo yoyon waxay ku dhahaysaa qof miyaa jira qalbiga ku jira ha ayuu dhahayaa laakiin waxa uu sheegin weysa ayay dhahaysaa wuxuuna dhahaa inaysan munaasab ku ahayn idin waxay dhahaysaa xiriir ma lihi gacanta i qabso hadda anshin walaalkeedna wuxuu ku dhahaa filin aad u fiican ayuu ahaa waa mahadsantahay yoyo dhankan waxaa arkayna tiriishada anshin inay shaqadii iskaga soo tagayso anshin alaabaheedii meesha yaala ayay kasoo qaadanaysaa dhankan waxaa arkayna atooree sekretariyada umaas waxayna ku dhahaysaa anshin shaqo kale ayay raadsanaysaa isna wuxuu dhahaa ama imtixaanka ku dhacda isna iyaduna waxay dhahaysaa u diyaarin karna wuxuuna dhahaa balan ayaa ka qaadina hooleha soo faragashanaynin dhinac kale tiriishadiin waxaa soo waxaa atooree ningi wuxuuna ku dhahaa cunto mucuntaha ayay dhahaysaa hadan interview ayaa gal rabaa ay dhahaysaa wuuna u geynay been u sheegaysa dhankale gurigeeda ayay usoo laamaysa waxayna arkaysaa inuu cuntooyin u diyaari fariimo qurux badan oo mid walbana uu qoray iyadan sawir ayay ka qaadaysaa isaga ayayna u diraysaa waxayna ugu mahad celinaysaa wuxuu u sameysna wuxuu dhahaa waa daalantay hadda ii naso atooree ningeeda meesha ayuu iskaga tagayaa waxaa arkayna shirkad aad u weyn inay soo bandhigayso mashruuc aad u weyn dadka dhan waxay isku dayaan qof walba inuu ka qayb qaato mashruuca dhankan waxaa arkayna atooree ningeeda sekretariyiis waxay ku dhahaysaa mashruuca waa yareysnaysaa waa mashruuc weyn haddii aad ka qayb qaadatid aad ayay u fiican tahay waan isoo saarayna isna wuxuu dhahaa si kale oo isku soo saarna ayaa ka badan asaagan ayaana fursad siinayna ayuu ku dhahayaa atooreheena waxaaba arkayna in stageka loogu wacayo shaaw ayna ka qayb qaadanayso mashruucan dhankale waxaa arkayna shaaw inay soo aadayso dhankaas iyo atooraha waxayna dhahaysaa ma soo geli karaa gaariga isna ha ayuu dhahayaa waxayna u mahad celinaysaa maadaama uu caawiyey isna waa caada ayuu dhaha waxayna dhahaysaa aqoonta ii lahayd darteed soomaali isna wuxuu dhaha may fikirka oo aad u fiicnaa darteed ayaa kuu caawiyey shaawna waxay dhahaysaa hadda aad ayaa iskugu fiicanay soomaali isna wuxuu dhaha kala saar shaqada iyo saaxiibtinimada waxayna dhahaysaa haddii aa u baahan tahay xiriir wana dhexmari karaa isna wuxuu dhahayaa waxaas looma baahna dhankale waxay dhahaysaa madax ayaa wax kaa saaran waxaa arkayna sawirooyin qarsoodiya in laga qaadayo shaaw iyo atooraheena dhankale waxaa arkayna shaaw waxay ku dhahaysaa dad wada shaqeeya ayaa nahay saacan laga bilaabo haddana waa kaasii tagaya ayay ku dhahaysaa dhinaca kale tiriishadeena anshin waxaa arkaysaa biraha bulshada sawirkii lagu soo baahiyey shaaw iyo atooreen ningiyo laga soo qaaday weyna wacaysaa wuuna ka qaban weynayaa anshinna walaalkeed waxay weydiinaysaa shaaw iyo lingiyo inuu xiriirka dhexan jira isnaha ayuu dhahay anshin si hoose wuxuu dhahay taas muusan ii sheegine dhankale waxaa arkayna shaaw iyo anshin inay is arkayaan wuxuuna ku dhahayaa sawirka maxaa saxafiyiinta ayaa qaaday wuxuuna dhahay soo ma ogid lingiyo in anshin inay xiriir leeyihiin waa inaad ka fogaataa ayuu ku dhahayaa hawn anshin inay usoo dhawaatay waxay ku dhahaysaa ani isaga waxba managa dhexeen waxaas qalbiga ha gashani waa wax hore barfuunka aad ayuu carfaaya ayay ku dhahaysaa shawn waxay dhahaysaa lingiyo ayaa ii keen barfuunka jeclay ayuu ogyahay sidoo kale shaaw waxay ku dhahaysaa adiga ayaana soo dhexgala mooysaa ani isaga xiriir ayaa lahaan lahay waxaa kaloo arkaya inay qof qarsoon la hadlayso wuxuuna ku dhahay alaabta ma soo dira idan iibkaada ayay dhahaysaa dhan kale tirishadana anshin walaalkeed ayaa usoo waday wuxuuna dhahay meesha jeclada oginaya sidoo kale atooreen lingiyo tirisha ay usoo habeen ka qaban weynaysaa atooreen lingiyo wuxuu dhahay si degdeg waa inaa ugu saartaa social media sawirada lasoo baahiyey isna wuxuu dhahay dadka dhan way ku baaheen mana ka saari karo waa inaa ka saartaa ay ku dhahay daqiiqadan ay ogsi waxaa arkayna secretaries inay u sheegaysa anshin meeshay joogto dhan kale shaaw ayaa arkayna iyadoo fikirays waxaana kasoo hadlaya shaan wuxuuna ku dhahaysaa hadda ayaa kaa fikira horena waa ka imaatay shaan wuxuu ku dhahayaa see u aragta haddii abasbaad isla aadna iyaduna waxay dhahaysaa isla aadaynaa wax yar ka bacdi iyadoo kombyuutarka fiirinaysa waxay arkaysaa shaqo muhiim weyn inay usoo baxday waxayna dhahaysaa ma isla aadi karno isna dhib male waqti kale ayaa isla aadaynaa ayuu ku dhahayaa dhan kale tirishadan anshin iyo walaalkeed waxay isku soo raacayaan badda waxayna ku dhahayaa mar dambe wiilkaas magaciisa hanuu soo qaaday mana ogolaan doono waxaa camal inay markale dib usoo laabtaan iyadana haya ayay ku dhahaysaa waxaaba arkayna atooreen lingiyo inuu gadaal ugu wacay iyaduna waxay dhahaysaa halkaa maxaa ku keenay wuxuuna ku dhahaa atooreen lingiyo meel kasta ayaan kaa soo raadiyey hadda ina keen ayuu ku dhahay anshin walaalkeed wuxuu dhahay ma ku raaxayso waxaa arkayna atooreen lingiyo inuu xasuusoor kusoo dhacaysa oona suuxayo wen usoo ordaya isbitaalka asagoo jooga ayaa arkeen dhan kale atooreen lingiyo suuxdinta ayuu kasoo baxaya hadda sida tahay ayuu ku dhahay isagoona fiican ayuu ku dhahaa nig miya ii welweleysa ayuu ku dhahay iyadana maya ayay ku dhahaysaa waxay kala weydiinaysa shaaw barfuunka isticmaalaysay wuxuuna ku dhahay aniga qaladkii ayuu ku dhacday midaas waxayna ku dhahaysaa xiriir miyaa lahaan jirta adiga waagii iskuulka isna wuxuu ku dhahay maya isku fasal oo keliya ayaa ahayne sidoo kale anshin waxay ku dhahaysaa maxaa badda uga cabsataa isna wuxuu ku dhahay anagoo yar ayaa la igu turoon xanuun ayaana qaba daaweyn ayaa cawaa badan aad ayaa ugu cabsadaa ku dhahaysaa igaraan aqmadaas ma ogeyn hala soo qaybteen xigta